kulankan wadatashiga ah ayuu kusmaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha baarlamaanka wadajir ula qaatay wasiirka wasaaradda dastuurka guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waxaana kulanka ujeedadiisu ay ahayd sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha dastuurka ayadoo dhammaanba dhinacyadu ay aragti iswadaarsadeen kusmaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo furtaankii kulanka ka hadlay waxa uu dhammaanba hay-adaha ku shaqada leh dhammaystirka dastuurka ee kulanka goobjooga ka ahaa ku guubaabiyey in lagama maarmaan ay tahay in howlahooda dastuurka ay ku dhammaystiraan muddada ka harsan sanadkan 2015 si ugu dambeyn dastuurku uu gaaro in afti qaran dadku ay ugu codeeyaan wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya mudane Xuseen Maxamed Sheekh Badni oo markii kulankaasi uu soo gabagabay kadib la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay waxaabihii kulanka looga wada hadlay maanta waxaan fursad u helnay inaan isu nimaano guddiga la socodka baarlamaanka ee arrimaha dastuurka guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda arrimaha dastuurka shir inay isugu yimaadaan maanta shirkaas oo uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari shirkan waxa ujeedadiisa ahayd maadaama ay wasaaradda iyada ay ahayd wasaarad cusub oo hadda markii ugu horeysay la magacaabay xilkina shalay la wareegay in la dardar geliyo howshii dastuurka oo muddo soo socotay haddana waqtiga yar oo noo dhiman waa aad u yar yahay si marka howsha loo dardargeliyo inaanu ku heshiino labada guddi ee guddiga la socodka iyo guddiga dib u eegista iyo wasaaradda inay ku heshiiyaan qaabkii ay ku wada shaqeyn lahaayeen iyo barnaamijna ay sameystaan oo waqtiyeysan barnaamijkaas oo ah sidii dastuurka dib u eegis loogu sameyn lahaa iyo dastuurka sidii howshiisa loo dhammaystiri lahaa maaragtay loona hirgelin lahaa kulankan dhinac laga eego ahaa mid isbarasho ah oo dhinacyada dastuurka ku shaqada leh ay markii ugu horeysay ku soo hor fariisteen waxa uu muhiimad gaar ah u leeyahay sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha dastuurka in la dhammaystiro dib u eegista dastuurka dalka ugu dambeynna la gaarsiiyo in afti qaran lagu codeeyo waa mid muhiim u ah tiirarka la doonayo in lagu hiigsado sanadda 2016 oo ah dalkan in doorasho ka dhacdo cabdi fataax daahir jeete raadiyaha telefishinka qaranka xarunta villa hargeysa muqdisho